dilal ka dhacay gobolka Hiiraan ayaa xal laga gaaray kadib markii ay ku baxeen gudoomiyaha gobolkaasi iyo xildhibaano ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi ee Hirshabeelle. markale Ikraan Shire ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa gaaray degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo deegaano hoostoga ay ka socdeen howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. gudoomiyaha iyo xildhibaanada ayaa xal ka gaaray dilal ay sababeen qabiilo oo muddooyinkii dambe ka jiray duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. waxgaradka deegaanka ayaa u mahadceliyay dhammaan mas'uuliyiinta ka qayb qaadatay xalinta colaadan. si gaar ah waxay ugu mahadceliyeen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo qaatay mas'uuliyadii wixii dhacay oo dhan. sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa dilal qabiilo ay ka dhaceen deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan kuwaas oo ugu dambeyn xal laga gaaray.